wafdi ka qayb galaya shirka 15 bishan oo cilaamiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaafis la markaana looga arinsanayo aayaha Galmudug ayaa soo gaaray magaalada Gaalkacyo iyadoo duleedka magaalada ay ku soo dhaweeyeen wasiiro xildhibaano xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka ee dhawaan uu magacaabay madaxweyne Xaaf siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan wafdigan oo isugu jiray wasiiro odayaal dhaqameed ayaa u yimid ka qaybgalka shirka looga hadlayo aayaha Galmudug iyo dhismaha dowlad goboleedka Galmudug oo dhawaan uu cilaamiyay madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf ugu horeyntii wafdigan ayaa waxa soo dhaweeyay Abshir Diina Cawaale wasiirka hore ee arrimaha gudaha iyo amniga dowlad goboleedka Galmudug oo kamid ahaa mas'uuliyiinta ka qayb galay soo dhaweynta wafdigani waxaan sharaf caawa inaan kamid ahay odayaasha deegaanka oo soo dhaweynaya wufuudda Galmudug oo ka kala yimid meelaha kala duwan ee Galmudug ay degan tahay una yimid baaqi madaxweynaha in doorasho dhacayso oo halkan lagu dhisi doono Galmudug xalaal oo xaq ah oo loo maray dariiqii ugu talagalay isagoo xilka haya hadda oo xilkiisa nool yahay wali hadee waxaan soo dhaweynayaa suudaamada iyo mas'uuliyiinta reer Galmudug oo ka kala yimid gobolada kala duwan iyo degmooyinka kala duwan soo dhawaada walaalayaal dhanka kale wafdiga yimid oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay u yimaadeen ka qaybgalka shirka looga arinsanayo aayaha Galmudug iyo dhismaha Galmudug loo dhan yahay oo dhawaan uu cilaamiyay madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf waa kan Sheekh Ibraahim Guureeye oo hadlay wafdiga galabta soo gaaray Gaalkacyo iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo labada goloba Galmudug oo lagu soo dhaweeyay meeshan waxaan leenahay habeen wanaagsan waqti gaaban marka hore la gaaban laakiin waxaan rabnaa inaan u sheegno haddii la yiraahdo kulligeen bay sharaf weyn oo tahay Galmudug waxa laga soo maray waad ogtihiin iyo inta juhdi u soo sameynay kuma cusbintaana way soo wada garanaynaa kulligeen inaanu Galmudug xor iyo xalaal dhisno laguna dhiso haddii la yiraahdo Gaalkacyo deegaankii lagu aasaasay Gaalkacyo in lagu dhiso haddii la yiraahdo waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo guddiga farsamada ee dhawaan la magacaabay inuu waqti kooban shaqadiisa gudan doono haddii la yiraahdo si loo helo baahida la qabo Galmudug waxyaalo badan maadaama anu waan 4 sano ka hor soo shaqeynayay waxa dib u dhigo xilligan gaarsiiyay waxa weeye isku tashi la'aanta Galmudug inay dib dhacdo waxa keenay isku tashi la'aanta xaal lagu mahal yiraahdaa marigta kale ala zaad qeyri idara juucu ninkii tala saartay zaad ninka la gacanta ku hayo baahidiisu waa dheeraataa waxaan u baahnay inaan isku tashano Galmudug dhisano hadda waxay la tahay inaan kulli wada ogaanay inaan u baahanahay inaan wada dhisano baahideeni cid baraysan aysan joonaga ahayn waxa la yiraahdaa kale ma xaka jildka mislu dhifrika shirka kuma xoogtid wax ciidaada kula mid ah Galmudug marka isku tashi way ku dhismaysaa wayna ku soconaysaa waxaan rabnaa waxa la yiraahdaa dawladda federaalka waxaan ka rabnaa inaysan Galmudug anaga dhisayna inay nagu faragelin codsi intaas anaga inay dhibaatada kaliya waxa la yiraahdaa min ibtiqaa'il khayr ibtiqaa'u sharri khayrka la doono waxa kamid ah sharka loo iska ilaaliyo waxaan ka codsanaynaa sharka kaliya inay naga ilaaliso waa mahadsantihiin Saadaq Saciid Nuur Galmudug TV Gaalkacyo